ruurta u heesaani waa muddo koobanoo hadday ugu badato ku eg wakhtiga ay da'doodu u dhaxayso 2 ilaa 3 jir markaa kadib baa si dhab ah waxaa loogu bilaabaa in loo sheekeeyo mar walbase waxaa la tixgeliyaa ilmuhu siduu barashada af soomaaliga horumar uga sameeyo taasoo ay carruurtu ku kala gedisan tahay waxaa jira qaar goor hore afka in door ah ka barta oo kolba waxa uu waayeelku u sheegayo si fudud u garan kara iyo kuwo sabab ugu wacanba ay awooddaasi ka daahdo miduu ahaadaba kolnaba shardi ma aha si loogu sheekeeyo canugu inuu afka yaqaan uuna ku hadli karo isaga oo aan erayna aqoon ayaaba loo heesaa loona sheekeeya sida ay heesaha carruurtu u leeyihiin ujeedooyin kala kaan ah ayay sheekooyinka carruurtuna u leeyihiin ujeedooyin iyaguna kala kaan ah sheeko walibana waxay leedahay dan loo curiyey oo marka horeba uu darteed waayeelku u maleego inkastoo kol walba ujeeddada taagantaahi ay maaweelin tahay haddana sheekada carruurta waxaa ku hoos qarsoon ujeeddo kale oo looga dan leeyahay canuga loo sheegayo in wax lagu baro waxa lagu baraana guud ahaan waa hiddaha iyo dhaqanka ay bulshadiisu leedahay sida afka xiriirka dadka dhaqashada xoolaha dugaagga jaadadka badan leh ee geyiga ku nool iyo wixii la mid ah sidaas oo kale waxaa sheekooyinkaas loo xambaariyaa deegaanka uu ilmahaasi ku dhex koraayo anshaxa iyo dabeecadaha laga jecel yahay iyo kuwa lagu daraabo badan oo ka mid ah sheeka carruureedda soomaalida ayaa waxaa lagu loolansiiyaa sharka iyo khayrka iyada oo marka dambe uu loolankaas khayrku ku adkaado waa si ilmaha loogu koriyo jacaylka wanaagga loona baro ha dhowaato hase dheeraatee kolley iyo kolley inuu khayrku gacanta sare yeelan doono taana waxaa lagu tusaalayn karaa sheekooyinka ay soomaalidu carruurta ugu sheekayso midda ugu caansan waa sheekadii dadqalata dhegdheer oo badanaa meel uu dalka kaga korayba qof walba oo soomaali ah markuu dhallaanka ahaa loogu sheekeeyey haddaan soo koobo waxaa la yidhi dhegdheer waxay markii hore ahayd gabar gabdhaha kale lamid ahoo qurux badan kolkii ay gashaanti noqotay ayaa la guursaday waxayna dhashay 3 gabdhood dabadeed iyada oo reer leh ayaa dooxada nugaaleed ee ay ku noolaan jirtay waxaa ka dhacday abaar xuno dad iyo duunyaba lagu hoobtay gaajadii markay u adkaysan weydana dad qalato ayay noqotay hilibka dadka ayay macaansatay markaas bay cunno kasta oo kale ka go'day si ay haddaba dhallaanka u xiisageliyaan curiyayaashii sheekadu waxay muuqaallo aad u foolxun ka bixiyeen isbeddeladii dhegdheer ku dhacay kadib markii ay dad qalatowday waxay ku tilmaameen qof aad u buuran aad u xoog badan aadna u dheeraysa hadday qof cayrsanayso sida dabaylaha ayay u xiimi jirtay cid ka baxsan kartaana ma ay jirin waxaa la yidhi waxay lahayd timo cad oo markay ordayso sida saynta fardaha ay dabayshu gadaal ugu sayrto waxay kaloo lahayd baa la yidhi indho aad u gudguduudan waxayna wax ka arki jirtay dhul aad u fog awoodda maqalkeeda ayaa intaasba ka darayd maalin gelinkeed meel loo socdo ayay wax ka maqli jirtay haddii xataa ay waxaas yihiin laan ay dabayshu geedaha midkood ka jabisay dhacdeeda labadeeda dhagood way kala abuur duwanaayeen mid baa tan kale ka dheerayd waana halkii uu magacu ka raacay kolkay jiibsato ayay dhegtaas dheeri kor u lignaan jirtay ilaa ay gama'do markaasoo ay dhulka ku dhici jirtay culayaashii sheekadu waxay kaloo dhegdheer ku tilmaameen inay waayadii dambe bahal u ekaatay hilibkii dadka siday u cunaysay ayay yeelatay miciyo kuwa uubatada aan laga aqoon iyo cidiyo kuwa gorgorka u eg xooggana kala mid ah cidiyahaas iyo mindi af badan oo gaaleefa ayay ku dili jirtay kolba qofkii ay maalintaa soo ugaartay sheekadu leedahay dadqalatadu waxay lahayd hanaamo ka tiro badan qoyskii soomaaliyeed ee miyiga ahaa kuwii uu lahaan jiray badanaa qoys waliba ugu badnaan wuxuu ku aqdaaman jiray 5 haamood ama ka yarba iyada kuweedu waxay ka koobnaayeen 10 haamoodoo mid mooye inta kale ay biyaha ku kaydsan jirtay midda tobnaadi waxay ahayd qarsoodi oo xataa gabdhaheedu kama warqabi jirin waxa ay habartu ku fasho waana hilibka dadka ay qalato tii ay ku ridan jirtay magac bay lahaydoo waxaa la odhan jiray bowdheer markii la bujiyana dhulka meelaha ugu fogfog ayaa laga maqli jiray dhegdheer aad bay u argagax gelisay nolosha bulshadii reer miyiga ahayd ee ay dhexdeeda ku noolay carruur iyo waayeel dumar iyo rag wadaad iyo waranle cid u dagatay oo ay dayn jirtay ma ay jirin meeshii lagu sheegaba 4 geedi baa looga guuri jiray markaas baa dadkii naftii isugu timid carruurtii baa xoolihii loo darsan waayey 2-3 nin in la isku raaca mooye socodkii kelikelida ahaana waa lagu dhici kari waaye si la yeelo iyada oo la garan laayahay ayaa dharaartii dambe waxaa aqaladii dhegdheer ku soo leexday gabdha habow ah oo aabbahood catir caana ku nuuge wax uu siiyey intuu waayey uu duurka ku ambiyey mid ka mid a aqaladii kolkay galeenna waxay ku arkeen gabadhii dadqalatada oo tiirdhaxaadka ku xihan markaas bay weydiiyeen gabarey maxaa meeshaan kugu xihay
markaas bay u warrantay oo ku tiri meesha waxaan ugu xiranahay hooyaday oo aadad qalata dhagdheer dhowr jeer ayaan isku day inaan ka baxsado sidii ay yeeleen laba gabdhood oo walaalo aanu nahay sidaa daraaddeed ayay mar walba oo ay ugaarsi tagto halka ay iigu xirataa aniguna inkastoo aan ina dhagdheerahay haddana dad qalata maahi hilibka dadkana ma cuno walaalayaalo ha iga teginina gabdhihiina markay ogaadeen aqalada ay joogaan inay kuwii dhagdheer yihiin ayay naxeenoo naf iyo nololba ka quusteen kolkaas bay waxay ina dhagdheer ku yidhaahdeen gabarey annagu waan iska cararaynay nabaday markaas bay ku tiri hooyaday hadda waa inagu soo dhowdahay kamana carari kartaani iska jooga meel baanu idinku qarinayaa dabadeedna markii ay seexato oo ay dhagteeda dheer u dhacdo ayaynu isugu tegaynaa oo dilaynaa ina dhagdheer oo labadii gabdhood raar ku duubtay ayay duqdii timid haddiiba intay dab shidatay ayay ku ridatay wiil yaroo ay soo ugaarsatay gabadheedii oo halkeedii ku xiran ayay inta xarigii ka furtay waxay ku tiri namaandhay markii dugsigu karkaro oo hameenku kala barmay toosi iyaduna way daalanayde way iska jiibsatay ha yeeshee intaysan gam'in ayay si uun u dareentay in reerka lagu jiro oo iyada iyo gabadheeda lagu weheliyo markaas bay tiri namaandhay maxaa urahayana sahable ugu baawrahaye gabadheedii baa kolkaa ku tiri hooyo waa kuwaygee ma anigaan hunguri iga kaa galay wax yar kadib ayay haddana la soo booday namaandhay bari buuran oo gabdheed baayuu urahaya hooyo waa taydee ma anigaan hunguri iga kaa galay ayay gabadhiina tiri cabbaar kadib ayay haddana inta soo hinqatay oo suxulka mudatay waxay tiri namaandhay xulus gabar ugu baayuu urahaya waa kaygee ma anigaan hunguri iga kaa galay markaas bay ugu jawaabtay haye intay tiri ayay iska aamustayoo haddiiba gamacday markaabaa dhegteedii dheeray dhulka ku dhacday markaabaa saddexdii gabdhoodna isu yimaadeen digsigii karkaraya fuudkiisii intay 3 weel ku kala shubteen ayay dad qalatadii dhegta kaga shubeen iyadiina haddiiba xanuunkiibay la soo boodday se waa cabaaday afkii ay kala qaadayba fuudkii u haray bay gabdhihiina dalqada shax kaga siiyeen markaabay dhulka isbeliqday cabbaar yar kadibna way dhimatay isla markiiba roob aan xilligiisii la gaadhin oo dayr iyo gu aan midna ahayn ayaa buuraha xargaga iyo agagaarkooda ka da'ay kolkaas bay gabdhihii heeseen waxay yidhaahdeen dhagdheer dhimatay roobey dhulkii nabaaday roobey allaw roonan roobey muuqata sheekada dhagdheer waxay leedahay duluc dhow iyo mid shishe tan dhowi waxay tahay in xilliyada ka mida ay dhulka Soomaalida dad qalata ka jiri jirtay ifafaalahaas oo ay abaaruhu sababi jireen dulucda shishana waxay tahay in ugu dambaysta khayrka iyo sharka oo khayrku gacanta sare leeyahay inkastoo mararka qaarkood la moodo in aan sharka loo babacdhigi karin taana waxaa inoo cadaynaya sidii fududayd ee habla yaryar ay u dileen qoftii waayeel oo dhammi uu wax ka qaban kari waayay bulsho weynta cid ka badbaadisay qoftii la waayay